Assalaamu calaykum. Xayawaanno kala gedisan ayaa mararka qaarkood waxa ay muujiyaan maskax cajiib ah, iyada oo daraasado fara badan laga sameeyay arrimo fara badan lagu ogaaday. Haddaba kuwan waa dhowr xayawaan iyo awoodo cajiib ah ay leeyihiin oo la soo ogaaday. Riyaha ayaa waxay ka mid yihiin xayawaanada daraasadaha laga sameeyay maskaxdooda. Waxaan xasuustaa riyo dhowr ah oo aan lahaan jirnay marka galabtii ay yimaadaan guriga ayay ganjeelka ama albaabka geesahooda ku xoqi jireen si looga furo albaabka, oo waxaad u malaynaysaa in qof albaabka soo garaacay. Haddaba waxaa jirtay daraasad Australia lagu sameeyay si loo ogaado inay xallin karaan waxyaalo adag. Waxaa riyahan la soo hordhigay caag ay ku jirto cunto. Laakiin si ay u gaaraan cuntada halkaas ku jirta, waa in marka hore ridu ilkaheeda ku soo jiida xarig, markaas oo u soo baxayo bir ay tahay in ridu afkeeda kor ugu qaado. Markaas kadib ayaa cuntadii soo baxaysa oo ay ridu cuni kartaa. 9 ka mid ah 12 riyood ee daraasada lagu sameeyay waxa ay ku qaadatay wax ka yar 4 isku day inay cuntadii gaaraan. Riyahan 10 bilood kadib ayaa imtixaankaas oo kale la mariyay, markaas oo ay xasuusteen sida cuntada loo gaari lahaa, taasoo macnaheedu yahay inay xusuus dheer leeyihiin. Maroodiga ayaa isna daraasado la sameeyay xaqiijiyeen inay luqadaha kala sooci karaan, iyo haddii ay niman hadlayaan ama dumar iyo carruur. Qaaradda Afrika qabiilada qaybtooda ayaa maroodiga ugaarsada. Marka saynisyahano ayaa koox maroodi ah waxa ay dhageysiiyeen codka rag ku hadlaya luqadda qabiil ugaarsada maroodiga. Markaas oo ay maroodiyadii bilaabeen inay meesha codka uu ka imaanayay ka cararaan oo ka fogaadaan. Markii la dhageysiiyey codka rag ku hadlaya luqadda qabiil aan ugaarsan maroodiga, ayaa maroodiyadii wax dareen ah aysan samayn oo si caadi ah ay u ahayd. Haddaba mar kale ayaa waxaa maroodiyada la dhageysiiyey codka qabiilkii ugaarsan jiray, laakiin markaan waxaa isku dhex jiray codka haweenka, carruurta iyo raggaba. Laakiin maroodiyadii maysan biqin oo kama cararin meesha, taasoo macnaheedu yahay in marka codka haweenka iyo carruurta ay maqlaan ay ogaadeen inaan iyaga loo socon. Laakiin marka ay maqlaan codka ragga kaliya uu macnaheedu yahay inay khatar ku jiraan oo ay dhici karto in iyaga loo socdo. Tukaha ayaa isna waxa uu ka mid yahay xayawaanada lagu tiriyo inay maskax badan yihiin. Tukaha ayaa waxa uu xallin karaa waxyaalo aysan xallin karin carruurta 8 sano ka yar, iyadoo tijaabo arrintaas la sameeyay. Dhala afdhuuban oo biyo yar ku jiraan ayaa shay dusha laga saaray, iyadoo marka tukuhu afkiisa geliyo dhalada uusan soo qabsan karin waxa ku jira. Markaas ayaa tukuhu waxa uu soo qaadanayaa dhagxaan yar oo uu biyaha dhex gelinayaa si ay biyuhu kor ugu soo kacaan, markaa kadibna uu soo qabsan karo shaygii uu rabay ee biyaha dul heehaabayay. Halka markii arrintan oo kale la hordhigo carruurta 8 sano ka yar, dhalada afka dhuuban oo aysan gacantooda kula soo bixi karin waxa ku jira ay garan waayaan sida loo xalliyo, halka tukaha ay ku qaadato garashadeeda waqti aad u yar. Dolphinka ama humbabaradu waxa ay ka mid tahay xayawaanada lagu tiriyo maskax badnaanta. Saynisyahanada ayaa waxa imtixaan ka qaadeen xayawaano badan iyaga oo soo hordhigay muraayad. Xayawaanada badankood waxa ay u maleeyaan in cidda ka muuqata muraayadda aysan iyaga ahayn, iyaga oo qaybtooda isku daya inay la dagaalamaan waxa muraayadda ka muuqda. Laakiin markii humbarada laga qaaday imtixaanka ayay isgaratay in cidda muraayadda ka muuqata ay iyada tahay. Saynisyahanada ayaa waxa ay rabeen inay hubsadaan arrintan, markaas ayaa waxay sameeyeen in midab ama calaamad mariyeen meel jirkeeda ka mid ah oo aysan arki karin. Laakiin markii ay muraayadda timaado oo ay aragto calaamadda jirkeeda ku qoran, ayaa waxay isku dayeen inay iska tirtiraan, taasoo macnaheedu yahay inay garanayaan in cidda muraayadda ka muuqata ay iyaga tahay. Waxaa kaloo jirtay meel lagu xanaanayn jiray humbarooyinka ayaa waxa ay ku tababareen in qashinka ku dhaca buulka ay joogaan ay soo qaadaan oo u keenaan qofkii tababarayay, markaasna la siinayo kalluun ay cunaan. Maalintii dambe ayaa waxaa la arkay mid ka mid ah oo khiyaano samaynaysay. Waraaq ku dhacday meeshooda ayaa waxay gelisay dhagax hoostiis. Markay aragto tababarihii kalluunka siday ayay waraaqdii qaybteed soo goysaa oo u keentaa si cunto loo siiyo. Markay cunto kalluunkaas haddana qayb kale waraaqdii ayay soo goysaa si kalluun dheeraada ay u hesho. Shinnida ayaa iyaduna waxaa la soo ogaaday inay xisaabta fahan u leedahay. Intaan u gudbin sheekada shinnida ayaa waxaa jiray xayawaano kale oo la sheegay inay xisaabta fahmaan. 1891 ayaa macallin Jarman ahaa waxa uu goostay inuu faraskiisa baro sida wax loo xisaabiyo, isagoo isku dayay inuu baro isku darka iyo kala jarka. Ninkaas oo la dhihi jiray Wilhelm von Osten ayaa waxa uu sheegay in faraskiisu uu bartay sida wax loo xisaabiyo, isagoo faraska markii uu rabo inuu ka jawaabo su'aalaha uu qoobkiisa dhulka ku dhufanayay.
tusaale ahaan markii la weydiiyo 8 laga jaray 4 jeer ayuu dhulka garaacaya. faraskaas ayaa caan ka noqday Yurub badankeed markaas oo hay'ad waxbarasho Jarmal ah baaritaan ku samaysay waxa ka run ah. haddaba waxa ay soo ogaadeen in marka ninkii tababarayay uu ag joogo uu farasku jawaabaha garanayo markuu maqan yahayna uusan garanayn. arrintaas oo macnaheedu yahay in farasku uusan xisaabta fahmayn ee uu wajiga tababarihiisa ka akhrinayay markii uu garaaca dhulka joojinayo. waxaa sheekadan oo kale la mid ahaa ay waayo dhaweyd sidaas oo kale sameynayay oo sida wax loo xisaabiyo si fiican u yaqaanay oo BBC-du xataa warkeeda ku soo tabisay. haddaba haddii sheekada faraskaas iyo aygaas ay been noqotay ayaa saynisyahanadu waxay soo bandhigeen xayawaanada qaybtood oo awood u leh inay gartaan tirooyinka. xayawaanada qayb badan ayaa awood u leh inay kala gartaan tirooyinka siday u kala weyn yihiin. xayawaanadaas ayaa waxaa ka mid ah libaaxyada iyo dhurwaayada. diraasad lagu sameeyay ayaa waxaa la ogaaday in libaaxyadu marka ay maqlaan codka libaaxyo kale waxa ay fiiriyaan tiradooda. tusaale ahaan haddii ay maqlaan codka 3 libaax iyaguna 4 yihiin waxay isku dayaan inay weeraraan meesha codku ka imaanayo. haddii codka ay maqleen uu ka badan yahay inta ay yihiin waa ay ka joogsanayaan inay weerar qaadaan. shinnida ayaa iyaduna awood u leh inay kala garato tirooyinka sida ay u kala waaweyn yihiin, iyadoo saynisyahanadu xataa ogaadeen in shinnidu taqaan nambarka 0 ama eber oo carruurta da'da yar ay badankood fahansanayn wax laga wado. tusaale ahaan haddii carruurta qaybtood la weydiiyo xagee ayuu ku jiraa tirada tufaaxyada ugu yar, waxaa dhici karta inay doortaan kan ay ku jirto 1 tufaax, laakiin xisaab ahaan waxaa sax ah in la doorto kan aan waxba ku jirin maadaama ay ku jirto 0 ama eber tufaax ah, maadaama uu eberku ama 0du nambar tahay ka mid ah nambarada. haddaba shinni ayaa waxaa lagu tababaray markii ay doorato tirada yar in la siiyo macmacaan ay cunto. shinnidii ayaa markii imtixaankan laga qaado si sax ah u dooranaysay tirada yar, laakiin iyagoo aan marna lagu imtixaamin waraaq aan waxba ku qornayn iyo mid aan dhibco ku qornayn markii la soo hordhigay ayaa waxa ay isla markiiba aadeen tii aysan waxba ku qornayn. arrintaas oo saynisaanadu ku fasireen in shinnidu ay fahansan tahay in 0 ama eber ay tahay lambar ka yar lambarada kale oo sidaasi u aadeen midii aysan waxba ku qornayn. haddaba markii aad u fiirsatid abuurta Ilaahay ayaad arkaysaa arrimo badan oo cajiib ah. intaas nooga jooga barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.